Maarayaha hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray bilowga shaqada goobtii afraad ee dhismaha wadada laamiga ee isku xidhaysa gobolka Togdheer iyo Sanaag ee degmada Garadag. Munaasabadii bilowga shaqadaasi oo lagu qabtay goobta ay shaqadu ka bilaabmayso ee dhinaca galbeedka magaalada Garadag ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada Garadag, madaxda shirkadda dhismahaasi fulinaysa, ajaanib Chinese, dadweynaha degmada Garadag iyo marti sharaf aad u tiro badan. Mulkiilaha shirkadda dhismaha fulinaysa ee Cadaad Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo horreynba munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku sida hay'adooda ay diyaarka ugu tahay taabagelinta dhismaha wadada uu qaranku u eegmaday. Shirkadayadu waxay ballan qaadaysaa wixii alaali wixii qalab ahaa loo baahnaa mid walba laba ayaanu ka keenay. Waxaan ugu talagalnay inaanay wadadaas marnaba aanay hal shay aanay isu taagin. Waxaan ballan qaadaynaa heshiiskii aanu la galay hay'adda aanu la galay oo heshiis aanu qaranka la galay oo heshiis aanu ummadayada la galay. Waxaanu jecelahay heshiiskaas sida uu yahay in shirkadda dhismaha ee Cadaad ay uga soo bixi doonto. Waa isaguna halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Garadag Yuusuf Cabdi Axmed. Wadada Garadag oo maanta bilaabatay oo qalabkii taagan yahay oo professorkii ka warbixinayay shirkadda Cadaad baanu haddaanu nahay degmada reer Garadag aad iyo aad ugu faraxsanahay, ilaahayna ugu mahadnaqaynaa. lixdankii waxaa la odhan jiray Cerigaabo wadadeeda waa la samaynayaa. alxamdulilah maantun bay annagoo nool hirgashay. intii ka horraysay hadal iyo heesuun bay ahayd. haddaanu nahay degmada Garadag waxaanu kaga qayb qaadanaynaa xoog xoolo iyo wixii aanu hor ugu ballan qaadnay. gabagabadii munaasabadaasna waxaa ka hadlay maarayaha hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan. maanta waxay farxad dheeraad igu tahay iyadoo goobtii Garadag aan u taaganahay bilowgeedii aniga oo aaminsan sida cadceedana ay ugu muuqateen wadada Cerigaabo Togdheer ay dhammaanayso. waxba waxaan leeyahay kala harimayno wadadaas runtii iyadoo aan fulinayno ballanqaadkii iyo awaamiirtii iyo talooyinkii uu bixiyay madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo aad moodo runtii barnaamijyadiisa inay top ka tahay marka koowaad ka tahay wadadaas in la hirgeliyo. Diinaha degmada Garadag ayaa iyaguna dhankooda muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin bilowga dhismaha wadada Garadag, waxaana ishaaca ka qaadeen inay muruq maal iyo maskaxba ay kaga qayb qaadan doonaan. dhismaha wadada laamiga ee gobolka Sanaag iyo Togdheer xidhiidhin doonta ayaa xukuumaddu waxa ay shaqadeeda si xawli ah uga wadaa degmooyinka Cerigaabo, Ceelaf Weyn, Garadag iyo Inaaf Madoobe.